isbedeshay gamekii waa adkaaday waxa weeye weerar iyo weerar celis bay noqotay markii hore waxay ahayd weerar goolka ninkan muslimka meel walba la isaga keenay oo kubaddu dhinaciisa ayay mar walba taallay oo lagu soo weerarayay laakiin haatan waxa uu bilaabay difaaciisii inuu ka soo baxay wuxuu bilaabay weerar kalsooni baana soo galaysa wuxuu yidhi odaygii baa wuxuu yidhi waa qisooyinka cajaa'ibka ee mudan xaqiiqatan lagu cibro qaato waxay ka dhacday magaalada London waxaana markii ugu horreysay fooda isdaray nin da'diisa aan ku qiyaasay 75 ilaa 85 dhalashadiisu waa Ingiriis timuhu waa cad yahay garku waa cad yahay oo xabad madow laguma arko haba yaraatee timihiisa noloshiisa intii badnaydna wuxuu ka shaqaynayay wuxuu ku soo dhamaystay sayniska iyo culumta sayniska sidii loo horumarin lahaa itusoo itaabsii buu yaqaanaa daliil diineedna shuqulkuma laha isagu waa kuwa u googo'ay xaqiiqatan baanu odhan karnaa sayniska iyo waxyaalaha la halmaala ee markaas culummada xargagoosatay ee sayniska ka mid ah maalin maalmaha ka mid ah ayaa anigoo goob fagaaraa jooga ayaa waxaa khudbo meel ka jeedinaya wiil yar ah oo asagu asalkiisu uu yahay carab muslin ah ayaa meel la yiraahdo speakers corner ama hyper corner oo fagaara la isugu yimaada ah oo ra'yada fikradaha diimaha lagu soo bandhiga ah ayuu inankaa yaru ka khudbaynaya dadkii ugu faraha badnaa ayaa ku soo xoomay oo geesihiisa taagan si yaroo khafiif u hadlaya hadalladiisa mid walbo kan kale uu ka culays badan yahay dooda maalintaa taagan waxa ay ahayd mid leh ilaah ma jiro oo macallinkan sayniska ah khabiirka ah iyo wiilkan yaroo lamaya ilaah baa jira dadku aad ayay u dhegaysanayaan waxayna doonayaan inay ogaadaan bal cidda guushu raaci doonto wiilku waa yar yahay da'diisu ninkan odaygaahuna waxa weeye nin da'a khibrad fara badan buu xambaarsan yahay wiilkii wuxuu hadlo laba gabdhood oo yaryar oo 22 jir ah oo u dhashay dalka Denmark ayuu islaamka uga sheekeynaya waxa uuna ku leeyahay islaamku dumarka ma liido karaamadoodana kuma tunto iyo waxyaalo lamid oo inta badan aragteen miidiyaha reer galbeedka iyo kuwa muslimiin sheeganaya in inta badan sidaa yiraahdaan siday doontaba ha ahaatee gabdhihii iyo waxay isugu baxday inankii dhalinyarada ahaa gabdhuhu kaale iska arag weeye waad garan kartaa gabdho la yaryar oo dhalinyaro ah weeye dad fara badan bay soo jiidanayaan attentionkooda su'aalo markaas waxay weydiinayaan ka dhan diinta islaamka dumarka iyo weliba waxyaalo la mid ah bismillah haddaba daawada qisadanu waxa ay leedahay dhammaad cajaa'ib badan oo ku taaban doona hadday ilaahay yidhaahdo ee la soco ninkii da'da ahaa ayaa habba tartiib u soo durkaya ingiriiska ahaa dabadeedna wiilkii yaraa ayuu wuxuu weydiiyey su'aal toosa kadib markuu wiilkii gabdhihii ka dhammaaday uuna yidhi yaa su'aal qaba odaygii baa farta taagay waana oday xoogaa yaro dheer waxa uu yidhi intaas oo sano ayaan macallin saynis ahaa khabiir saynis ahaa laab ka shaqaynayey computer iyo electronic microscope ku shaqaynayey waxa aad sheegaysid sali iyo raad ma lahan bal na tus oo na taabsi dabadeedna waa la aamusay waana la iswada eegay inankii yaraa ayay sheekadii goolkiisa ayaa la keenay kubaddii waxaa la yidhi waxaanaad sheegaysid wax dhaba ma ah waa nin yara oo dhuuban khamiis wuxuu qabaa cad oo aad moodid iminka inan maxay too warshadda laga soo saaray si u kaawadaysan yahay garku waa u kaawadaysan yahay intaa wejigaa waa madowdahoo nuur baa ka baxaya siimaahum fii wujuuhihim haddaan si kale idin idhaahdo insha allahu tacaala saaxiibayaal waxba yaanan war idinku daarinay ninkii dhalinyarada ahaa ayaa wuxuu isku dayay inuu ninkii qanciyo aayaad ayuu u soo qaatay ilaahay inuu jiro waxa sheegaya adiga abuuristaada ilaahay inuu jiro waxa sheegaya sayniska ayaa hadda lagu ogaaday human embryology-ga ilmuhu say caloosha u galaan iyo dariiqooyinka kala duwan ay maraan what about that
ilaahay tus warkaaga ma rabo meesha ayuu odaygu taagan yahay inankii yaraaba isku dayay inuu meel kale ka tuso suuraturaxmaan buu soo deliishanayaa uu leeyahay marja albaxrayni yaltaqiyaani baynahumaa barzaqu laa yabqiyaan shalay baa la ogaaday siduu nebi maxamed ku ogaaday waxaa kaloo soo deliishanayaa aayaad fara badan haddaba ninkii odayga ahaa ee da'da ahaa meeshiisa ayuu taagan yahay waxa uuna markiiba ka helay support groupkii ayagu meesha u taaganaa u badnaa ee markaas ayagoo aan muslimiinta ahayn laakiin dhegaysanaya ninkan muslimka ah waxaad dareemi kartaan bresharka iyo culayska soo food saaray ninkaa dhallinyarada ah waxa uu ka hadlay ilaahay inuu mid yahay diimaha kale islaamku uu ka duwan yahay waxaa la yidhi saaxib annagu waxaa kumaanaan weydiinin ee na tus oo na taabsi rabbigaan aad sheegaysa koonkaan abuuray dabadeedna inankii yaraa ayaa waxa uu bilaabay in uu maaragtay xoogaa yara ma dhihi kara khalqa laakiin waxaad dareemaysaa itus ilaahay marka lagu yiraahdo qof aan rumaysnayna uu ku leeyahay ilaahay wax meel yaalo dadka la tusi kara ma lahan laakiin waad garan kartaanoo sanuriihim min aayaatina waatuu ilaahay leeyahay aayaadkeena waxaan idinka tusinaa idinka naftiina iyo from the horizons inta idinkaga caddaanayso inuu ilaahay xaq yahay mid kaloo la caabudaana uusan jiranin laakiin ninkaana waxaa ma rabo itusoo itaabsii buu leeyahay arrintii ayaa ku laabtay ninkaanu waa nin da'ah aad iyo aad buu da' u yahay laakiin waa degan yahay dulqaad buu leeyahay wuu taagnaan karaa muddo fara badan su-aashiina wuxuu ka helay kalsooni fara badan inuu wiilkan yar degada kaga dhigi karo wiilkii yaraa marka wuu fakeray hadduu fakeray wuxuu soo jeedsay arrintan muhiimka ah wuxuu yidhi ilaahay haddii aan ku tuso haddaad rabti ilaahay inaan ku tuso waxaan keliyoo kaa rabaa inaad hal shay samaysid oo aad awoodid adoo halkan jooga haddii arrintaas aad ku guulaysatid anna ilaahay baa ku tusaya dabadeedna waa la isfiirshay now the tables are turning ciyaartii waa isbedeshay gamekii waa adkaaday waxa weeye weerar iyo weerar celis bay noqotay markii hore waxay ahayd weerar goolka ninkan muslimkaa meel walba la isaga keenay oo kubaddu dhinaciisa ayay mar walba taallay oo lagu soo weerarayay laakiin haatan waxa uu bilaabay difaaciisii inuu ka soo baxay wuxuu bilaabay weerar kalsooni baana soo gelaysa wuxuu yidhi odaygii baa wuxuu yidhi waa maxay waxaad sheegaysid haddii aanay tahay waxaan awood u leeyahay inaan sameeyo waa samaynayaa ii sheeg waa maalin samar ah cadceeddu waxay u kulushahay maxaa kaa galay waa bisha august waa bartamaha magaalada london wuxuu yidhi cadceeddaas haddaad sakanna eegtid oo indhuhu aysan ku xanuuninin rabbi baan ku tusayaa galabta dadkii hal mar waxay yidhahdeen dadka markay sheekada la haystaan waad fahmi kartaan waxaan rabaa inaa idin dareensiiya say wax u dhaceen ninkii odayga ahaa ayaa waxa uu yidhi ma intaasoo keliya ahaa cadceedda ma eegi kara buu yidhi laakiin waa isku dayaya saan kuu qanciyo dabadeedna cadceeddu eegay cadceedda markaad eegto ag tahay muraayadda indhahaagay ku dhacaysaa dabadeedna waxa weeye waxba kama qaban kartidoo indhahaagu inay markiiba dabooshid bay kugu kallifaysaa maxaa yeelay awood ka badan baa waa lagu awood sheegtay wuxuu ku yidhi wiilkiibaa marka hadlay wuxuu yidhi waxa aad rabtaa inaan ilaahay ku tusaa dalbanaysaa waxaadna arki kari la'dahay oo daciifnimo bini'aadana kugu jirta awgeed makhluuqa ilaahay qayb yar oo ka mid ah sidee ilaahay kuu tusaa odaygii arrintii jiq bay ku noqotay way taabatay wuxuu yidhi bal ilaahan aad sheegaysid ii sharax wiilkii baa marka wuxuu bilaabay inuu ilaahay ninkii baro haatan hoggaanka waxaa haya wiilkii hoggaankiibuu hayaa waxa uuna doonayaa inuu ka waraabiyo ceelkii tawxiidka sheekadu waa cajaayib waxa dhacday markaas kadib inuu bilaabay inuu ilaahay u sheego aayad kursidu u macneeyey laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm hurda ma qabato mana gamaanyoodo waxaas ilaahay wax ka weyn weye ninkaanuna ilaaha uu sheeganayo ilaaha ninkan muslimka uu sheegayo wuxuu arkaa wadaad yaroo caraba oo beri hore noolaa iyo kutub maxaa la dhahaa carabtu ay qortay iyo kuwo kiristaanku ay qoreen waxaasay u arkaa waxaasuna isagu kuma qanacsano wax ka weyn buu raadinaya marka wuxuu yidhi waxaan aad sheegaysid niyahow way igu socdaan sheekadiibuu u waday allahu laa ilaaha illa huwa alxayu alqayuumu laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm aayadaas u fasiray suuratu qul huwa loo fasiray
إلهي سبحانه وتعالى مقعيدي سقروح بدن بو الشيغي محال لها attribute كيس العزيز الحكيم الملك القدوس السلام المؤمن ولله أسماء الحسنى فادعوه بها ninkii odayga ahaa dhidid baa qooyey wiilkii yaraa markii hore wuxuu saarnaa kursi yar ah kursigiibuu ka soo degay odaygiibuu u soo dhowaaday dhegta almost inuu dhegta afka u saarayoo kale uu ku akhriyey aad uma maqlaya anugu marka meel dambaan taaganahay wuxuu ku oranayo laakiin I can almost read from his lips waxa uu u sheegayo inuu ilaahay u sheegayo waxaan daawanaba odaygii waa macallin science itusoo itaabsii buu yaqaanaa wuxuu ku qancay ilaahay attributekiisa magaciisa quruxda badan inuusan makhluuqa ka mid ahayn makhluuqa qayb ku ahayn dabadeedna wuxuu yiri waxaad aaminsan tihiin baan aaminayaa diyaar ma tahay baa la yiri dabadeedna shahaadada ayaa loo qabtay waxa uu yiri maxay ku dhacday inaan weligay marnaba la ii sheeginin diintan islaamka quruxda badan waxa aan tv ka aragnaa waa dad waalan oo qarax iyo dhibaato iyo dhiig daadanaya waxaasan waxaan ahayna maan arkin laakiin maanta laga bilaabo albaab iyo iftiin baa ii furmay 80 jir weeye noloshiisoo dhan baashaal buu kusoo dhammaystay iyo hawl adduun haatan xarigga ilaahay buu qabsaday hidaayada ilaahay baa haya dadka xukumin qofka si tartiib wax ugu sheeg hadduu kaa qaato khayr hadduu kaa qaadan waayana faraha ka qaad qisadan waxaa laga baran karaa wiilka yarkaa inuu yaqiinta ilaahay uu ku qabo uu garab istaagay uuna arkay ninkan dhallinyaro odayga ah itusoo itaabsi la yiraahdo iyo sayniska in uu ku qanciyo aayaadka kowniga ee u muuqda maxaa yeelay waa cilmaani ma garanayo wax kale waxa u muuqda keliya unbuu garanaya intaas ayaan jeclay qisadan aan kusoo koobo haddii aad qisadan ka heshay fadlan noo sheeg qisooyin kale oo gaagaabana noocaan oo kale idin soo gudbin doona haddii ilaa yiraahdo saaxiibadana la wadaag waa mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullah